burcadda kombiyuutarka wax ku dhaca ee loo yaqaano hackerska waa kuwa awoodo inay internetka ka sameeyaan magac iyo baabi'in warbixino muhiim ah ayagoo isticmaalaya khibradda ay u leeyihiin in ay wax ku dhacaan internetka ee kombiyuutarka. Muuqaalkan maanta waxaan kula wadaagi doonaa 5 hacker ee ugu khatarsan caalamka. Magacaygu waa Master Click, halkan waa kanaalka Right Click Som oo aan ku soo gudbiyo muuqaalo ku saabsan technology iyo isticmaalka aaladihii ugu dambeeyay. Haddii aad daawanayso muuqaalkan oo aad ku cusub tahay kanaalka, fadlan ku soo biir oo subscribe saar, sidoo kale gambaleelka furo. Audio Jungle. Nambarka 5 Kevin Mitnick waxaa loo yaqaanaa hackerka madow. Mitnick wuxuu bilaabay in internetka wax ku jabsado asagoo daayar dabayaaqadii 1970kii. Ninkan markiisii ugu horeysay wuxuu jabsashadiisa ugu horeysay uu ku bilaabay basaska ka shaqeeya magaalada Los Angeles si uu u helo raacitaanka basaska bilaashka ah. Laakiin markii dambe shaqadiisa ayaa noqotay mid dad badan oo dunida saaran ka yaabisay. Kadib markii uu jabsaday shirkadaha waaweyn sida Nokia, Motorola, IBM iyo Pentagon oo ah waaxda difaaca ee Mareykanka. Waxaa gacantiisa ku baxday malaayiin dollar oo lacag ah. Waxaa FBI daba taagneed muddo 3 sano ah ka hor inta la qaban 1995tii, waxaana lagu xukumay 4 sano oo xarig ah. Nambarka 4 Matthew Paven iyo Richard Price. Labada nin ee u dhashay dalka Ingiriiska waxay caan ku noqdeen in internetka wax ay ku jabsadaan sanadii 1994tii. Kadib markii ay weerareen shabakadda Pentagon, waxay ugu dambeyntii awood u yeesheen in ay xadaan sawirada dagaalka goobta. Kaliya intaas kumay ekaan, waxay sidoo kale xayireen fariimaha kaga imaanayo wakiilaha kala duwan ee la shaqeeyo Pentagon. Waxay heleen agab badan oo aad xasaasi u ah. Nambarka 3 waxaan filayaa inaad maqashay rag lagu magacaabo Anonymous. Waxay soo shaac-bixeen sanadii 2003dii. Waxay si aad ah ugu ololeynayeen cadaaladda bulshada, xorriyadda internetka iyo daahfurnaanta. Waxay jabsadeen wax kasta. Waxay u dhaceen dowladda China, CIA iyo FBI. Raggan ujeedkoodu ma ahayn in ay lacag helaan, taasi oo ka sii dhigaysay kuwa ka sii khatar badan sidii laga filan karay. Waxay awood u yeesheen in ay website-yada ku daawacaan warbixinada dowladda u gaarka ah iyo dukumiintiyada dagaalka, waliba si bilaash ah. Sidoo kale waxay kashifeen dilal badan oo FBI geysatay, sida dilkii loo geystay Charlie Hebdo iyo Michael Brown. Sidoo kale waxay soo bandhigi jireen dilka qorshaysan ee geysan jireen qolada lagu magacaabo KKK. Nambarka 2 waa nin aan magaciisa la aqoon laakiin la magac baxay Astra. Wuxuu soo shaac-baxay bartamihii 2000. Wuxuu muddo 5 sano ah si aan kala joogsi lahayn u xadi jiray hubka tiknoolajiyada iyo software-rada kala duwan. Astra waxa uu si dhaqsi badan u gadi jiray dhaatadii uu xaday dadka iyo shirkadaha ku yaal Brazil, South Africa, Bariga Dhexe iyo guud ahaan daafaha dunida. Lama qiyaasi karo inta lacag ay gacantiisa ku baxday, laakiin waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxayso 251 milyan ilaa 361 milyan oo dollar. Astra wali lama yaqaan cidda uu yahay. Nambarka 1 ee ugu dambeeyo Gary McKinnon oo loo yaqaano Solo wuxuu awooday in uu dhaco xogta militariga ee Mareykanka iyo adeegyada NASA sanadii 2001dii. Kaliya wuxuu tirtiray xog ku fadhido $7,000 oo dollar. Waxa uu tirtiray xog badan oo iskugu jiro dukumiintiyo, software iyo files muhiim ah. Solo ficiladiisa lacag kuma dhiirigelin jirin, laakiin waxa uu u tagi jiray meesha uu wax ku jabsado fariin naxdin leh. Waxa uu qori jiray security-na ma adko. Aniguna waxaan ahay Master Solo. Waxaan sii wadi doonaa jabsashada aan ku wado xogihiina. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, la sii wadaag muuqaalkan saaxiibadaada.